waxaan jecelahay laba suldaan oo salaadiinteena waaweyn ka mid ah inaan mid walba kelmad siiyo waxaan salaadiinta ka codsanaynaa iyagoo sharaf naga mudan inay ka jawaabaan laba erey oo ah ciidankii ma la kala qaaday dhinaciina ma ka hawl gasheen miyay maanta wax idinka xaniman yihiin soo hawshii iyo garnaqi ma bilowno su'aasha aan weydiiseen ee ku saabsan dhinaca xagga ciidamada kulay dhankaan maxay xagga aan ku hadlayo afkooda ciidanka iyo wixii haw ciidamada ku saabsan runtii markii horena may filiqsanayn waa ogeydeenoo dee waa tii la kala saaray ciidamada oo qoloba meel baa la geeyey meeshii bay ku sugnaayeen hawshoodiina waa dhammaatay wax ciidanahoo ay ku urursan imika meel oo hawshaa u tafaxaydan ama duulaana xaggaa kuma ogin hawshaas waa dhan tahay xagga dacwadda iyo dee 5 maalmood aynu kala qaadanay soo diyaar garowgeedana waa dhan tahay oo dhinaca reerka Sacad Yoonis waa ka dhan tahay labadii liisay aad dalbateen liiska 11ka iyo liiskii 12ka ahaana labaduba waa idin diyaar kolay salaadiinta raaska ee xagga Sacad Yoonis baa idin keeni doona magacyadooda iyo liiskooda laakiin labadubana waa diyaar weey labada arrimoodna waa dhan yihiin waa diyaar waxa la su'aalay waxa weeye ciidamadii ma kala qaadeen ciidamadii waa tii awalba hore loo kala qaadayo waxa la yiri ciidan meel ku urursan ma jiro ciidan meel ku urursan ma jiro sidaas baa anigu aan ku warhayaa ciidankii xagga kan la kala dir warkaanaya waa ka weey waxaan sheegayaa meel kasta ha jirey ciidanku meel kasta ha joogo kali buu isu helaa laba isu helaa waxaan meeshi waxa lagu adkeeyay waxa weeye in nabadi jirto oo aan wax isdhaqaaja jirin ballanka la kala qaatayna waa cayka waana la kala diray maxaad kale isuashay arrintii ma idinka dhantahay ma bilaabayna suldaan karti ma bilaabayna ma idinka dhantahay diyaar ma u tihiin maya waxba naga dhiman buur madow oo ka soo baxay saaka Hargeysa maalintii horena dawaanigii sheegay xaajigaas ilaa uu noo yimaado ma gulmarin nalagu sumo ilaa biri caawa taasuna